السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر kale iyo Cabdicasiis Cali Nuur iyo cashirkiisii Programming Language. Haddaba caawa waxaan qaadanaynaa cashir aad u muhiim ah. Waa programkii ugu horreeyay ee wax logic ah ama shaqo la yaqaano aan qabanayno. Marka waxaan tusi doonaa macnaha meelaha qaladku ka imaanayo iyo waxyaabaha aad iska fiirinaysid marka la socod wanaagsan. Waxaan isticmaalaynaa saa hore aan kugu sheegay barnaamijkan Turbo C++ ayaan isticmaalaynaa. waa ii kacsan yahay. Waxaa ku weynaysanayaa dadka inta badan problem oo dhibaatana haysta dhalinyarada markii hadda meel laga weynayo ma lahan programkan, laakiin shortcut ayaan inii sheegaya. Shortcut-kaas waa Alt Enter aad dhahaysaa, wuu ku weynaanayaa. Alt Enter markaad dhahdid wuu ku weynaaday. File aad dhahaysaa, Open aad dhahaysaa. Programkan qaadanayna caawa waxaa la dhahaa adding two integers. Adding two space ma ogola, adding two integer aad dhahaysaa. Adding two integer enter. Waa kana adding two integer waa isoo wacay, waa weynaysanayaa. Kadib programkii aan qorayaa. Waxaan ka bilaabayaa qaybtii ugu muhiimsaneed oo aan hore kugu soo sheegay, documentation section aan ka bilaabayaa. Waxaan dhahayaa labadaas calaamo waa single line comments aan isticmaalayaa. Waxaan dhahayaa a program capital iga dhig eeda a program to find a program to add two integers oo macnaheedu yahay Soomaali ahaan ay u tahay program lagu qoraayo program isku diraya labo tiro, laba lambar. intaas waa intaan hadhoweyto compile-ka macnaha compiler-ku ma compile garaynayo, waayo maxaa yeelay single line comments ayaan isticmaalayaa. saa arkaysidba single line comments ayaan isticmaalayaa. calaamad oo buluga oo haddaan ka qaado saan u ekaanaya programka, waa arkaysaa saan u ekaanayaa. laakiin labada calaamad waxay kuu sheegayaan qari macnaha waa qarinaysaa. compile-ka ka qari waayo. hadhoweyto marka haddaad qortidna program qalad kuma soo saarayo, haddaad ka tagtidna qalad kuma soo saarayo. waad fahanteen oo maleeyaa. marka hadda programkii aan bilaabaynaa. intaas bis magaca bis aan ku ekaanaynaa. waxaa laga rabaa hash. markaa program qoraysid hash waa inaad ka bilaawdid include. waxaan samaysanaynaa qaybtii library-ga ahayd link section. hash include stdu.h. programkan hore aan kugu sheegayo function ama header file ka gooniyo oo saaid ayuu isticmaalaa. kan kale oo code block ma isticmaalo. waxaa la dhahaa asna include calaamada greater than less than furaysaa. less than markaa furto waxaa dhahaa conio oo laga soo gaabshay console input output .h oo header file ah. .h horena waan kugu soo sharaxa, waa ku jirtaa cashirka. okay, intaa markaa qortid waxaad qoraysaa void oo hore aan usoo sharaxay, main oo hore aan usoo sharaxay. haddii marka aad ka tagtid intaan aan qoraayo, haddaa mid kamida ka tagtid programka ma kuu shaqeynayo, waa arki doonaa si u diidayo. waxaa furaysaa brace tab ayaan dhahay. waxaa dhahaysaa inti labadii lambaraa declaration aa samaynaysaa. tan waa data type waaye. data type haddaad wax kamid ah qaladid sidaan hadday saan ku cadday void oo kale waa keyword waaye. keyword marka waxay ku tahay way caddaanaysaa, mujeedidu way caddaanaysaa. horaa loogu dhisa compile-ka hore u yaqaanaa, macnaha compiler-ka hore u yaqaanaa oo programku horaa loogu dhis. hadda haddaan hal xabo ka tira cagaaray noqonaysaa mujeedidu. laakiin markaan dhammaystiro waa
waa dhammaystirantay inta caddaan ay soo noqonaysaa. waxaa dhehaysaa xarafka a iyo xarafka b ayaa la isku dirayaa. markii la isku darana waxaa lagu kaydinaya xarafka c. saa dhehaysaa waa identifiers aa dhaha kuwan. a waxaa la dhaha identifier, b waa identifier, c na waa identifier. waxaa ku kala soocaysaa identifierka coma marka ugu dambeysana semicolon aa kusoo gebagabeynaysaa. haddaad rabtid saana u qori kartaa. intaa dhigi kartaa a kaliya semicolon inti b semicolon inti enter dheh inti c semicolon saasaa dhigi kartaa. laakiin saan programka kaa dheeraanaya marka sida darteed waa hal xabaa ka dhigaysaa. coma aa ku kala saaraysaa a coma b coma c coma c semicolon aa dhehaysaa. intaan hadda waa declarationkia kuu samaysan. declaration markaa kuu samaysan labadan tiro laba qaabaa u leedaha. macnaha labadan tiro a iyo b aa isku diri rabtid oo markaa isku dartid c ay lamid noqonayaan. waxaad dhihi kartaa a is equal 5 aad dhihi kartaa. a is equal 5 a is equal 5 b is equal 6 aad dhihi kartaa. hadhowtana c labadooda la isku dara lamid noqonaysaa. qaacidaad samaysaysaa marka waxaad dhehaysaa programkan sidoo kale wuxuu isticmaalaa hore usoo sheegnay waxa la yiraahdo clear screen. haddii kale outputkii hore ayuu kuusoo sheegayaa. clear screen ayaan ka tegay marka clear screen aad dhehaysaa clear screen semicolon intaanay hadda samaysata. kadib waxaad dhehaysaa markaa rabtid labada tiro inaad isku dirtid c waxay lamid tahay a plus b semicolon aad dhehaysaa. kadib waxaad dhehaysaa printf na hore aan kuusoo sheego daabac waaye waa built-in function header file. built-in function waaye header file ay dhex tegaysaa. macnaha header filekaas oo kale oo include studio.h ay tegaysaa. marka calaamadaasna waa quotation double quotation aa furaysaa. waa wixii aa rabtay in laguu soo daabaco. wixii aa rabtay in laguu soo daabaco baad dhehaysaa. marka waxaad dhehaysaa a plus b semicolon aad dhehaysaa. printf qoysaa furaysaa oo first bracket ah furaysaa. quotation aa furaysaa double quotation ah. waxaad dhehaysaa percentage d. percentage d na waa sharaxaynaa. waxay u taagan tahay percentage d waxay u taagan tahay integer. ilaa waxaa dhahday 2 integers. inta fiiri integer waxaa jira float. integer waa tiro mutuxan whole number waay whole number waa taqaanaa waa 1 2 3 jajab oo dhan kuma jiro. marka percentage d aad dhehaysaa quotation double quotation soo xirayso coma aad dhehaysaa c semicolon aa kusoo xiraysaa. kadib programkan wuxuu lahay get ch na waan kuu sheegayo resultiga inaad aragtay ay ku tusaysaa. inter waa dhamaysay programkii waa dhamaysay second third bracket aa kusoo xiraysaa. intaan waa ku dhamaatay programkii. hadda run aa dhehaynaa run dheh run waa kaasaa labadooda marka la isku dara maxay ku noqotay 11 ansarka waa haysataa. okay qaab kalaa jira marka. haddii hadda tusaale ahaan kulligoodaan soo fiirayna hadda macnaha shaqada oo horta intaan kore waa qasab waay. intaan kore qasab waay. okay waxaan ka tegey second bracketkaasaan ka tegey. second bracket markaan ka tago muxuu dhahaa waxaan isticmaalaa control f9 aan isticmaala. muxuu dhahaa aqrin inta aqri. wuxuu ku dhahaa adding two integers fileka la dhaho nambarkiisa tobnaad compound statement missing waa kaasaa waxaa maqan calaamadaas oo third bracket ah maqan mujida horta halkaasuu kuu sheegaa. marka waa inaad ku dirtid waa ku qasbanta inaad ku dirtid. sorry waa ku qasbanta inaad ku dirtid. waa inaad ku dartaa marka markaas aad ku darto haddana dheh waa kasoo kusoo saaraa. okay taas waa fahna. haddaad ta kore ka tagtidna sidoo kale ku dhahaa. okay get ch ka tag. get ch saa uga teginaa sa aan dhahaynaa calaamada waa qarinaynaa macnaha combileka waa ka qarinaynaa. muxuu ku dhahaa marka qaladaa jira ma kusoo saaraayo wax ma kusoo saaraayo ma arkaysaa wax olbo ma kusoo saaraayo. okay ka tirtir get ch ka tirtir
waa kana hadda markaa ka tirtid oo kuu soo baxaa answer ku haystaa meelaha macnaha waxaan rabaa qaladka hadhowd kaaga imaanaya inaad sixi kartid meelaha waajibka ay tahay inaad ka tegin get ch oo kale hadda kama tegi kartid okay print f hadda kaba soo qaad t aan ka tira bis t bis aan ka tira t bis markaan ka tiro wuxuu dhahday filekii error ayaa jira 9 ka jira function printf should have a prototype macnaha ma yaqaano dadkii programka dejiyey ma aysan barin waayo midkan oo printf ah laakiin printf markaad tiraahdo tida ku dirtid wuu yaqaanaa printf wuu yaqaanaa hore ku soo rawa ka saarsan okay percentage d haddaad ka dhigtid percentage d haddaa meesha ka dhigtid waxaa dhacaya percentage d haddaa ka dhigtid wax oo buu kusoo bixi maayaan macnaha 11 hadda kuu soo bixaysay waxay matalaysay percentage d waa integral ahead aa lagu dhaha sax okay meeshaas waxaa ka dhigtaa percentage f oo u taagan decimal u taagan maxaa kuu soo baxaya fiiri kuu shaqeynaayo wuxuu ku dhahaa ma kuu shaqeynaayo ilay wax decimal isku kaadiro meesha miyaalina marka percentage d wuu kuu soo baxayaa sax percentage meeqa dhigo waa kaskoo tumo okay sidana ka tira sidan macnaha maxay u taagan tahay sidan waxay u taagan tahay markaad isku dirtid sidii waxaa ii daabacdaa waay waxaa ii daabacdaa qiimaha c ku jira qiimaha c ku jira semicolon haddaa comadaas ka tagtid comadaas haddaa ka tagtid wax kuu shaqeynaya malaha haddaa semicolon isku tagtid wax kuu shaqeynaya malaha marka waxaa jira syntaxaa inay sharaxaabin lowed syntaxku waxaa waaye syntaxka printf haddii lagu yihahdo qor maxaa waaye syntaxka printf waxaa waaye printf horta caadi inaad u qortid bracket inaad furtid double quotation inaad furtid waxa haddana inaad soo xirtid double quotation waxaa dhexdooda ku qoraysid waa semantics waxaa saartaa u qori kartaa haddaa rabtid percentage f aa qoran kartaa haddaa rabtid percentage d aa qoran kartaa haddaa rabtid percentage c aa qoran kartaa okay waxaa ku xiga syntaxka kale waxaa waaye coma parameterkii aad daabacaysay waa ku soo xiraysaa semicolon ugu dambaysa waa syntaxka printf haddii lagu yihahdo qor sidaase okay haddii lagu yidhaahdo marka programku intaas waaye waxaa jira qaab kale loo xisaabshaa jira marka calaa tiradan hadda aan u qaatay oo ah 5 is equal aan waxaan rabaa inaan aniga gashto ilaa dadku ma jecla hadda program waa markaa isticmaalaysa wuxuu ku dhahaa website camal akhrinaysaa isdiiwaan geli magacaada information waxaa dhan gelinaysaa see loo dhaha marka okay waxaad dhahaysaa scan f wax la yiraahdo isticmaalaya scan f printf waxay u taagneed showing input from the monitor macnaha inay ku tusto output inay ku tusto maahan scan f oppositekeeda waaye taking input from user from keyboard inaad keyboard wax ka soo gelisay marka syntaxka maxaa waaye scan f aa qoraysaa qoysaa furaysaa quotation aa furaysaa quotation markaa furtid waxaa dhahaysaa waxa aa qaadan rabto ma tiro caadiyaha ma jajabaa ma xarafa waxay tahay hadday tiro caadiya taxaa qaadanaysaa saan hore kugu soo sheegay percentage d b a waay taas haddana b percentage d kale oo b iyo a u taagantay laba percentage d markaa aragtid laba tiraa meesha u taagantay laba tiraa gasha doontaa okay quotation kusoo xiraysaa quotationka markaa kusoo xirtid coma aa dhahaysaa coma markaa dhahda calaamadaas ampersand design aa la dhahaa ama andi ama ampersand design ama bitwise andi aa la dhahaa waa inan tusi doon waa soo socota sharaxadeeda okay calaamadaas markaad furtid waxaa dhahaysaa a coma aa dhahaysaa calaamadii aa furaysaa oo kale b aa dhahaysaa waad kusoo xiraysaa semicolon waa fahamsoo maaha day inputku ma lahan macnaha inputku wuxuu leeyahay ampersand design laakiin outputku ma lahan iska fiiri comada waa wada wadaagaan okay hadda markaa intan joogtid waxaa dhahaysaa control f9 aa dhahaysaa waa kaan kusoo baxa laba tira qaado haddayd sidoo qana 5 aan qaatay enter 6 aan qaatay enter 11 arkaysaa horta si caadiya kugu shaqaynaysaa marka adding to integers waa kaasaa aad iyo aadaan iniin salaamayaa la wadaaga asxaabta wax allaale iyo wixii faham ku jira program kasto aan qorayo wixii faham ku jirana saas oo kale uga dhergi doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu